السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaad saaxiibayaal waxaan idinku bari doonaa videogan sida loo sameeyo jimco mubaarak ama jimco wanaagsan poster kaasaan ku baran doonaa haduu ilaahay karaan noqdo. Hadda midkaan u jeediin nafsa shay midkaan oo kala sameyn doonaa haduu ilaahay karaan noqdo qaabka loo sameeyo inaan idin tuso. Midkaan hadda sameeyay waxaan rabaa marka halkaan tag file tag new document dooro halkaan waxaa ka dhigaysaa 1080 intan 1080 intan waxaa rabta ka dhigo kadib maadaama internet aan gelin rabno RGB u day okay dheh intaas markay noo soo baxdo waxaan sameynaynaa marka sawir aa jiro aan soo degsaday sawirkaas isticmaali doonaa waxaan tagi doonaa place sawirkaan aan soo gashanaa kadib waxaan la ekaysiinaa halkaan la ekaysiinaa kadibna waxaan rabaa ilaa inta inuu isoo gaaro kadib okay aan leeyahay intaas markaan sameeyo waxaan rabaa sawirka inaan ka dhigo strass layer ka dhigo kadib waxaan rabaa marka sawirkan inaan geliyo wax loo yaqaano clip mask halkaan imo clip mask ka waxaan rabaa qaybtan sare sawirka inaan kasoo aan cadaan yar kasoo geliyo oo aan ku tiro dhuumiskan aan ku tiro marka waxaan tagi doonaa markaan clip mask aan geliyo kadib waxaan imaan doonaa halkaan aan imaan doonaa oo ah gradient-ga midkaan aan dooranaa kadib halkaan inay ahaato isku day inay ku ahaato white inay ku ahaato black inay ku ahaato kadib waxaan imaan doonaa halkaan waxaan kusoo jiidi doonaa falaartaas hoos aan soo jiidi doonaa ilaa ay isaga tirmato okay good intaasaa ka rabay wax yar aan ku daro okay intaasaa ka rabay kadib waxaan sameynaa marka intaas markaa sameeyo waxaan soo gashan doonaa sawirkii oo jimco mubaarak ama jimco wanaagsan wuxuu ku yahay inaan soo qaado halkaan aan soo geliyo kadib waxaan geyn doonaa halkaan ayaan keeni doonaa kadib mar rabo inaan color ka bedelo halkaan ayuu ii yaalaa wax yar aan sii weyneeyo wax yar si centerka aan u dhaho control A dheh kadib center okay hadda center waaye kadib marka waxaan rabaa kor cadaankaas ka ahaado saan hadda rabtid inaad ka bedeshid colorkan aadan rabin colorkan inaad ka bedeshid darteed image halkaan aad tagaysaa blending option tag halkaan dooro color overlay colorkan rabtid markaas sii ani madowgan ay ahaado kadib waxaan tagi doonaa halkaan aan tagi doonaa waxaan rectangle tool soo dooran doonaa halkaan aan rabaa inaan dhigo kadib dhinacyada waxaan kasoo geli doonaa xoogaa rounded yar okay kadib colorkan ka bedeli doonaa color waxaan siin doonaa green ka bixi stroke intaas markaa sameeyo stroke aan ka bixiyo intaas aan sameeyo waxaan soo gashan doonaa loogadeeda soo gashan doonaa loogadeeda markaa soo gashto geeskaan iska dhigi doonaa kadib waxaan rabaa buluuga inaan siiyo colorka buluuga oo loogadeeda inaan siiyo okay kadib intaas markaa sameeyo waxaan rabaa meeshaan in contactiga aan ku qoro bis halkaan imo waxaa dhacdaa halkaan iconka oo soo wicitaanka okay centerka dhig okay sidoo kale halkaan soo dooro fontska bobnis kadib marka waxaan ku qori doonaa lambarada la ila soo xiriirayo amaba okay labadaas number aan igala soo xiriiri karaa special lambarka dambe marka intaas markaa sameeyo wiil waxaan rabaa fonts inaan bedelo aan ka dhigo light okay intaas waay markaa sameynayso poster jimco wanaagsan qaabkaas oo sameyn kartaa very simple waay ma dhib badno kadib meeshaan waxaan ku darsan doonaa social media la soo xiriiri karo waxaan dhihi doonaa WTND okay halkaan tag waxaa ka doortaa Typicon kadib colorkaasaan siina Facebooka iyo WhatsAppka iyo waxaan igala soo xiriiri karaa
Facebook iyo WhatsApp waxaan la soo xiriiri karaa. Okay. Okay. Marka intaas waaye marka waa ujeedaa posterka aan sameynay waa poster qurux badan marka qaabkaas loo sameeyaa hadaa poster sameynaysid aad waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.